waftigan sharafta leh ee ka yimid Nairobi maanta ka soo duulay ee noogu yimid xafladda caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam oo ay hogaaminayaan walaalaha saaxiibada ee madaxweynayaashii hore madaxweyne Cabdikariin iyo madaxweyne Sharaf Xasan Sheekh Aadan xildhibaanada mas'uuliyiinta kala gedisan mudanayaasha marwooyinka soo dhawaada halkan waa gobolkiini dowlad goboleedka Jubbaland waa dalkii aad dhisteen lahaydeen waxaan u maleynayaa siyaasadda fasax yar baad ka qaadateen bilo kooban waa soo nasateen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaad noqotaan waftigii ugu horeeyay oo heerkan ah oo soo gaara magaalada Kismaayo caleemasaar ku yimaado taasoo reer Jubbaland qiimo weyn ugu fadhido لذلك حسوسان دونا دمانتين dalkii waa nabad nimankii aad ugeedeen oo nabadiidka ha mooyaan dhibaato kale ma jirto saaxiibo aragtay lagu kala gedisan yahay oo jirana kulli adinka nala dhaqi doona hadii alla idmo annagana si nabad ah iyo doorashada inoogu dhacdo wada socotaan xafladii caleemasaarka ahayd oo nagala soo qayb gasheen oo weynaysan Allah idinku ciseeyo soo dhawaada diyaaradii ugu horeysay dowlad goboleedka Jubbaland umada reer Jubbaland ay leeyihiin waa idin soo qaad taasoo horumar u ah shacabka Soomaaliyeed oo dhan ay ku faani karaan madaxweyne Farmaajo aan u maleynay inuu noogu soo hambaliyeen doono kulay wuxuu mudan yahay inuu noogu soo hambaliyay waftiga inoo yimid iyo diyaaradda shacabkiisa iyo dowlad goboleedkiisa ay heleenba waxaan ka filaynaa waa inuu noogu soo hambaliyeeyo soo dhawaada wixii waraysi iyo taladii aad noola soo safarteen iyo xafladii aad nagu soo qiimeyseenba waa geli doonaa safar dheer ba soo gasheen mudanayaal soo dhawaada aad iyo aad baan mar labaad idinkugu mahadcelinaynaa madaxweyne ku-xigeenada xubnaha gudoomiyaha baarlamaanka xubnaha golaha wasiirada xubnaha baarlamaanka ee Jubbaland iyo dhammaan shacabka reer Jubbaland dhamaantiin waa salaameynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii maanta sharaf weyn ayay noo tahay inaan ka soo qayb galno xafladda iyo damaashaadka caleemasaarka madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe aan kala soo qayb galno shacabka reer Jubbaland aan kala soo qayb galno maamulka reer Jubbaland aniga iyo saaxiibkay Sharaf Xasan Sheekh Aadan iyo xildhibaanada kale ee sharafta leh ma aragtay maanta soo gaaray magaalada Kismaayo waxaan runtii aad uga xunnahay in munaasabadda aan ku nimid ay ku soo aadan tahay ama ku soo aaday xilli shacabka reer Jubbaland ay saaran tahay cunaqabateen gardarro ah oo aan runtii qaban ay saaran tahay waxaan runtii aan leenahay shacabka reer Jubbaland ma qabato cunaqabateentaas ma qabato dhibaatada gaarka ah oo lagu hayo kamana qabato dawladoodii
ee ayaga dhisteen kama qabato taas aad iyo aad baan runtii uga xunnahay waa ku faraxsannahay in aan u nimid ama aan qayb ka nahay dadkii cunaqabateyntaas inay jebiyaan hormuudku u ahaa maxaa yeelay waa cunaqabateyn gardar ah waa cunaqabateyn dulmi ah oo aysan shacabka iyo dadka reer Jubbaland aysan kasban shacabka iyo dadka reer Jubbaland waxay mudan yihiin dawladoodana ka mudan yihiin Soomaaliyeedna ka mudan yihiin in lagu bogaadiyo laguna amaano nabadda iyo wanaagga iyo sharafta ay gaareen haddii waxyaabo kala aragti duwanaanshaha ay jirtana waa in wada hadal iyo wada xaajood lagu xalliyo mana filayo wada hadal iyo wada xaajood inay diidan yihiin dadka reer Jubbaland iyo maamulkooda inay diidan yihiin ma filayo saad ogtihiin dalka Soomaaliyeed waxay soo mareen dhibaatooyin badan wadankaana maraaxil aad u tiro badan ayuu soo maray meesha laga keenay qof kasta uu ogyahay waxa maanta meesha uu joogo lagu keenayna waa wada hadal iyo walaalow iyo wada xaajood iyo isku tanaasul ayaa lagu keenay sida kaliya ee dawladnimadana aan dhisanayna ay ku socon kartana waa isku tanaasulkaas iyo wada hadal waay laakiin ana eri iyo qof kale oo hadli kara ma jiro iyo qof kale oo ra'yi laga dhageysanaya ma jiro waxay la tahay arrin aan dawladnimadana aan hadda dhisanayno aan ku haboonayn inay taan aad iyo aad u qiyaasaya kullay wixii khudbado rasmi ah iyo hadal rasmi ah oo ama dhinaca siyaasadda ay noocyada kale jiro xilliga calaamasaarka dib dhiganaynaa waxaan aad iyo aad maamulka Jubbaland iyo shacabka reer Jubbaland uga mahad celinaynaa sida sharafta leh ee wanaagsan ee noo soo dhaweeyeen runtii wixii la dhihi lahaa saaxiibkay yiri reer Jubbaland runtii sharaf ay sameeyeen doorasho ay sameeyeen doorasho ay ugu daneynayaan dadkooda iyo dalkooda ugu daneynayaan wanaagii madaxweyne Axmed uu dalkan ka qabtay ayagoo u abaalgud u sameeyay inuu mar labaad iyo mar saddexaad inuu hogaamiyo runtii ani reer Jubbaland taas waxaan leeyahay waa si geesinimo iyo aragti iyo wadaniyad iyo dal jacayl ah runtii taas ayaan u arkaa hoggaan ay u baahnaayeen waxqabadkiisii ay arkeen daacadnimadiisa arkeen islaamnimadiisa arkeen dhinac walba ay ka arkeen buu ahaa haddii maanta jid lalaala ay mari lahaayeen runtii ayagaa ku dhibtoon lahaa saan aaminsanahay doorasho meel kastoo lagu qabto adduunyada dowladaha ugu dimuqraadiyadsan 50+ la isku doortaa marka waxaan aaminsanahay inkastoo dad wax ka qaba ay jiraan dadka reer Jubbaland wanaagoodii iyo jaceylkoodii iyo aragtidoodii iyo wadankooda sidii wanaagiisa way muujiyeen runtii waa ugu hambalyeynayna waana ugu nimid calaamasaarkan waxaan u rajaynaynaa inuu guul noqdo annagan waa ka soo qayb galnay midda kale runtii aad iyo aad aan ugu xunnahay reer Jubbaland waa soo halgamay wadankan dhinac walba ka soo halgamay haddii xorriyadiisa hore ay tahay haddii dhibaatooyinkii dhacay oo hadda dheeraaday oo waqtiga dheer qaatay ka halgankoodii iyo wanaagoodii iyo Soomaali jaceylkoodii waxay soo reebteen ma lahayn hawadii Soomaaliya ka maqnaan jirtay oo muddada badan ay u qaylinayeen wax xaqeeqan noo soo celiyo ay lahaayeen in ayaga hadda xabad looga dhigo lagula dagaalamo runtii aad iyo aad aan ugu xunnahay waxaana leenahay ka raalihaada waxa idin qabta maaha waxaan rajaynaynaa dawladda Soomaaliyeedna waxaan ka rajaynaynaa inuu caqliga shaqeeyo oo wada hadal iyo walaalnimo lala galo reer Jubbaland wixii ayaga ay jecel yihiin wixii laga tabanayo inta lagala hadlo si wanaaga loola hadlo ayaguna ay wixii wada hadal aysan ayagana diidin madaxweyne Axmedna aniga muddo badan soo wada shaqeynay shirar badan wada galnay waligiis meel kasta oo la tago waxaan ku ogaanay asiga wax dhaxdhaxaadiyo in la dhaxdhaxaadiyo aan diidanayn marka waxa kale oo ay xaqiijinaysa taas markii la doortay waxaan ka filaynaa inuu waraaq adag qori doono warqadu uu qoray oo dawladdu ugu baaqay uu leeyahay wixii dhacay waa dhaceen hal wada shaqeeyo runtii haddii intaa wax lagu qaadan waayo wax kale noqonay marka aad iyo aad aan idinkaga mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa in Soomaaliya oo nabada Soomaaliya oo mid ah Soomaaliya oo Soomaaliya iskale qofna maanta ma dhihi karo sidii aniga aan rabay si aan ahayn laguma socon karo Soomaaliya waxay ayada wada tiri oo isla tiri oo isla ogolaatay lagu socon karaa taasaana meel lagu gaari karaa marka dawladda Soomaaliyeed dadka hoggaanka u hayna waan leenahay dadka walaalihiin oo Soomaaliyeed oo mas'uuliyiinta la tashada waxa allaale wixii wax ka qabtiin wax ka dhaha dawladda dhexe marna lama inkirsana laakiin ayadu inay wax inkirto ayadu ay wax diido ninka reerka u weynaa inuu ciyaarta iyo uu bilaabo iyo dhibaatada uu bilaabo arrin nasiib daraawa runtii marka aad iyo aad aan uga xunnahay waxaan rajaynaynaa
isku imaatinkeenu mid kheyra inuu noqdo dowladduna inay inta wax ka fiirsato ayada international community bas waxyaalaha meeshan ka jiro xaqa intay ka aadaan sababta baarlamaan waa had doortaa la yidhi odayaal ha soo xuleena la yidhi waddo kasta waa la maray oo saxda ahayd marka in wixii ayaga inta la sameeyo haddana la yidhaahdo hebel ma arki karno runtii ma shaqaynayso dhibaato badanaa lagala kulmaa marka aad iyo aad u mahadsantihiin soo dhoweyntaana soo dhoweyseen iyo walaalnimada reer Jubbaland dhammaantoodana waxaan leenahay guulaysta waddadii xaq ahayd waajibkeeda ku taagantihiin